kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijka bayaanka danab waa toddobaadle aan idinku soo gudbino warar, sheekooyin iyo waraysiyo aan la yeelno taliyaasha ciidamada danab ee u taagan sidii dalkeena Soomaaliya ay uga dhigi lahaayeen mid nabdoon oo xasiloon. barnaamijka bayaanka danab waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka ee Danab Media. waxaad sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud, Radio Beledweyne isla maalinimada jimcaha saacadu marka ay tahay 3:00 galabnimo. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa toddobaadka ciidanka danab waxaana ka mid ah kumaandooska danab oo howlgalla ku dilay maleeshiya ka tirsan al-shabaab. ciidanka danab oo ku guuleystay inay miinooyin lagu aasay ka soo saaraan wadooyinka ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. saraakiil ka socotay xafiiska arrimaha bulshada danab oo maamulka degmada Walaweyn kala hadlay baahiyaha aadanimo ee ka jira degmada. waxaad kula barnaamijka ku daawan doontaan isbedelada nolosha ee ka jira deegaanadii ciidanka kumaandooska danab ay ka xoreeyeen maleeshiyaadka al-shabaab iyo kaalinta haweenka ku jira ciidanka danab iyo sida ay uga qayb qaataan dadaalada sugidda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Anoshilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka idila socodsiinaya. aynu ku bilownay wararkii ugu waaweynaa toddobaadka ciidanka kumaandooska danab. howlgal qorsheysan oo ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ka fuliyeen maalinimadii axadda deegaanada Galashimbi, Beerxaani, Libakuus iyo Cabdidheere oo ku yaala koonfurta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayay ku dileen 16 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. howlgalka oo daba socday howlgallo amni xaqiijina oo dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay ay danab ka wadeen ayaa sidoo kale lagu burburiyay saldhigyo ay kooxdu lahayda. kusimaha taliyaha guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure ayaa u sheegay barnaamijka bayaanka danab in ciidanka danab ay u taagan yihiin badbaadinta shacabka iyo bacsiga al-shabaab isla markaana ay uga daba tegayaan meel kastoo ay gabaad ka dhigtaan. waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka si loo guuleysto cadowga al-shabaab. ururka shanaad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo miina baarisa ka sameeyay maalintii Khamiistii deegaanada Shabac, Xarxaarka iyo waliba Gabdhoole oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. intii howlgalku socday waxay ciidanku ku guuleysteen inay soo saaraan miinooyin oo ay al-shabaab ku aaseen jidka gala deegaanadan. danab ayaa si nabadgelyo ah meel cidlo ah ku qarxisay miinooyinka si loogu hortago inay waxyeello u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadan. saraakiisha danab ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in howlgalku u dhacay sidii loogu talagalay, ciidankuna si laba jibaari doonaan howlgallada noocan ah ilaa inta laga xaqiijinayo in dhammaan la baabiyey miinooyinka ay al-shabaab wadooyinka ku aaseen. danab ayaa 2 toddobaad ee u dambeysay kordhisay howlgallada amni sugidda ah ee ay ka wado gobolka Jubbada Hoose. saraakiil ka socotay xafiiska arrimaha bulshada iyo warbaahinta ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa degmada Walaweyn kulan kula qaatay mas'uuliyiin maamulka degmada iyo shakhsiyaad ka shaqeeya horumarinta iyo adeegyada bulshada. kulankan oo dhacay Sabtidii ayaa looga hadlay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira degmada Walaweyn, deegaanka Balidogle iyo tuulooyin ku dhow ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiil ka socotay waaxda arrimaha rayidka ee taliska ciidanka Mareykanka ee Africom. saraakiisha danab waxay kulanka ka sheegeen inay qiimeynayaan baahiyaha xagga adeega bulshada sida caafimaadka iyo cunnada ee ka jira degmada Walaweyn si wixii karaankooda ay gacan uga geystaan caawinta ay u baahan yihiin dadka deegaanka. kumaandooska danab ayaa deegaanada ay ka howlgalaan waxay badanaa ka sameeyaan gurmad bini'aadanimo sida inay gargaar cunno gaarsiiyaan shacabka, daaweyn bilaasha iyo biyo dhaamin. kuwaasi waxay hayeen wararkii toddobaadka ee ciidanka danab. weli waxaad daawanaysaan daawadayaal qaybtii labaad ee barnaamijka bayaanka danab. xusuusnow daawada inaad rukumato bogga aanu ku leenahay YouTube-ka si aad toddobaad kasta u daawato barnaamij cusub. ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa lagu ammaanay guulo ay ka gaareen dagaalka ka dhanka nabadiidka al-shabaab kadib markii ay ka xoreeyeen degmooyin iyo deegaano hoostaga koonfurta iyo bartamaha dalkeena Soomaaliya. haddaba maxaa isbedel ah oo ka jira deegaanadii dhowaan la xoreeyay? waa sidee nolosha dadka deegaanka? barnaamijka bayaanka danab ayaa dib u eegaya isbedelada ka dhashay xoreynta.
ciidanka danab waxay dhowrkii sano u dambeeyay ku guuleysteen inay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolada koonfureed ka xoreeyaan maleeshiyada al-shabaab ciidanku waxay si weyn uga howlgaleen una xoreeyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida jannaale owdheegle bariire sabiible caanoole iyo qaar kale oo badan dhammaan deegaanadaas waxaa dib u soo laabtay noloshii iyo adeegyadii bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo amniga waxaa dib uga howlgalay maamulkii dawliga ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi ayaa ka warramaya xoreynta deegaanada gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose runtii nimanka argagixisada al-shabaab iyo daacish iyo al-qaacida waa dameeriya dhigtiisa waa kulay anoo kala ma jeclan argagixisa weeye waxaa maxaa ku laga xoreeyay dhul badan haddana waxaan wadnaa in maxaa ku raada dhulko dhan la isku furo argagixisada maxaa ku raada awood saase ma laha laakiin cidijar iyo cididsiib ay u baahan yihiin deegaan kasta oo xoreeyeen commandoska danab isbedel weyn ayaa ku yimid nolosha markii hore ka jirtay oo ahayd xornimo la'aan handadaad iyo cabsi joogto ah dadka deegaanku noloshooda ayay ku mashquulsan yihiin ardaydu subax kasta iskuullada ayay aadaan suuqyadu waa ay camiran yihiin jannaale oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee laga xoreeyay al-shabaab dadkeedu waxay ku faraxsan yihiin isbedelka dhacay horta laba meesha haddii laba qof isku bedesho kolay dhibka iyo dheefteelba waa la kala yaqaanaa laakiin qoladii hore magaaladan haysatay markaan joognay annaka waxyaabaha maanta aan helayn xorriyadda maanta haysano hadallada maanta aan ku hadleyno sida maanta aan u nahay aftahan mu hadli jirin laano waxaan ugu jirta baqdin dhankooda maantana waxaan nahay dad meel walba tagi karaan deegaankooda ay xor u yihiin inaan nahay run ahaantii ma jiri jirin dhalinyaro meel intay iskuul imaato fadhi ku dirar sameey karta ma jiri jirin dhalinyaro kubadda cagta ama garoomada baloon lagu ciyaaro deegaanka ah ma jiri jirin caburin zaa'id ka jiri jirtay xiliyadaas laakiin hadda ma sha Allah muddo laga joogo muddo sanad iyo xoogaan xaalad deegaanka waa mid aad u sareyso mid aad u fiican wax qabad cad ayaa ka muuqda kaasoo macnaa isbedel weyn keenay sida maxaa lahaa amniga aad iyo aad isu bedelay meeshii hore uu taagnaa maanta meel ka sii wanaagsan ayuu taagan yahay maamulka shabeellaha hoose wuxuu sheegay inay ka faa'iideysteen xoreynta ciidanka danab horseedeen tani waxay maamulka u sahashay in xorrimadii degmooyinka iyo saldhigyada booliiska ee shacabka loogu adeegay ay dib u furmaan meel kasta oo xoreeyaan danab waxay u fududeeyeen hay'adaha amniga sida booliiska inay la wareegaan shaqada sugidda nabadgelyada deegaanka xiriirka danab iyo booliiska waa mid joogto ah waxay si wada jira isaga kaashadaan ka hortagga weerarada argagixisada iyo hubinta in dadka deegaanku ay helaan nabad buuxda waa kan taliyaha saldhigga booliiska jannaale maxamed jiinow shacabkii la gacan qabtay gaashinkooda la siinayo la daaweynayo militarigii uu la safan yahay iyo maamulkii la garab hayo marka waxaa la oran karaa isbedel weyn oo qaymale haddii dadka aan waraysanay haddii cimiladii aan marka hore meesha ugu nimid iyo midda hadda ka taagan aan isbarbar dhignay mid aad iyo aad guul looga gaaray inay tahay gaarikeena deegaanada kale ee weli la haysto wax badan ayay ka baran karaan kuwa la xoreeyey waxaana fariinta ay u hayaan ay tahay inay ku dadaalaan siday isaga dulqaadi lahaayeen cadowga haysta iyagoo kaashanaya ciidanka danab commandoska Soomaaliyeed ee danab waxaa ka go'an inuu sii wado howlgalka xoreynta ilaa laga xaqiijiyo inay gacanta dawladda Soomaaliya ku soo laabtaan deegaanada weli la haysto si dadka deegaanka u helaan nabad iyo amni haweenka Soomaaliyeed ayaa sanadihii u dambeeyay ku biirayay hay'adaha amniga si gaar ah ciidanka commandoska danab haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin weyn kaga jira dagaalada loogu jiro amniga iyo xasiloonida Soomaaliya haddaba warbixintan waxaynu ku eegaynaa doorkooda iyo sababta ay haweenka Soomaaliyeed u doortaan inay ka mid noqdaan ciidanka commandoska danab gabdhaha ciidanka danab ku biiray waxay ka siman yihiin sababta ay ciidanka u galeen oo ah qarannimo jacayl iyo in ay wax ka bedelaan xaaladda ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya waa geesiyaal waxay muujiyeen doorkooda haweenimo ee kaga aadan inay arkaan Soomaaliya oo ay ku faanaan jiilka soo socda saddex ka mid ah tirada gabdhaha sii kordhaysay ee sanadba sanadka ka dambeeya galaya ciidanka danab ayaa u sheegay bayaanka danab in ay weligooda jeclaayeen inay u adeegaan dalkooda sida kaliya ay taasi ku rumeen kareenna ay ahayd inay danab ku biiraan horta dhalinyarada dalkaan nahay qof naga xigtana ma laha Soomaaliya marka sidaas darteed aan ugu soo biirin aniga ciidankan dalkayga dadkayga wuxuu qabtay dadkayga jacayl aan qabo
maahane wax kaloo gooniya ma jiraan maalin walba qaraxaa dhiyahaayo shacabka ka dhimadahaayaan sidaas dartii aan ka beeraday inaan dalkay difaacay mayba aan doorday ciidanka danab mayba aan maleeyay horta koo shacabnimadayba mayba ka fikirayaan commandos military inaan noqdo yani ka fikiraay soo ilaahay in suurta gali alxamdulillah in suurta gali hadana geeka mayba islaamiyeen ka sareeyay ku roogdo commandos dadka in ka cadadkaayan ka jarta amala islaha danaba ka tirsanaa ma sha Allah ciidan waxa la asaasay laho 14 October idaacadaha iyo waxsan ka dhageystay waxa ii soo baxday maadaama aan wax bartay khibrada iyo waxyaabaha aan bartay intaba aan dalku badbaadin karo dan aan noqdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan militariga inaan noqdo kumaandooska dumarka ay ka tirsan danab waxay u shaqeeyaan si la mid ah sida saaxiibadooda ragga ha noqoto howlgallada la aadayo tababarada iyo howl kasta oo shaqadooda ciidanimo la xiriirta way ku faraxsan yihiin shaqadooda waxayna rumaysan yihiin in taliska danab uu ahmiyad weyn siiyay in haweenka ciidanka loo qoro taasoo meesha ka saartay xagaldaacintii dumarka Soomaaliyeed lagu hayay ee ka hortaagneed inay ciidanka ay ku biiraan rag iyo gabdho way iga soo horeeyeen hablii kale iga soo horeeyeen way igu dhiirigeliyeen way soo dhaweeyeen wajh farxad leh anigana dareen ahaantayda walaahan ku faraxsanahay inaan gabar oo macnaha aan ku soo biiro askartii gabdhihi kalena iga horeeyeen aniga ugu maan horeeyeen waligeed askar noqon jiray gabdho noqon jireen wax ceebana ma aha Soomaa wax dalkaaga inaad wax qabatid anagu dhalinyarada dalkaan nahay oo gabdho hablihiina hooyooyinka Soomaaliyeedna waan nahay inaan dalka wax ka difaacno iyadana meesha ku jirta waajibna saaran waaye danab waa ciidan si gaar ah u tababaran xirfadoodu sareyso anshaxooda iyo u taagnaanshiyaha difaaca dalka ayaa dhiirigelisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo gabdhuhu ku jiraan inay ciidanku ay galaan waxay kala kulmaan markay ciidanku qorteen soo dhaweyn iyo in la tuso lahaanshiyo maqdas cabdi maxamed waxay leedahay ku biiritaankeygii kumaandooska danab waxay fajicisay nidaamka iyo kala dambeentooda waxay ahayd markii la furaay istaadiyo Muqdisho ciidan danab ay imaadeen waa joogay ciidan nidaamsan kala amar qaadanayo wiil yar watay waxaan ilaahay ciidanka danab baa lahaa ciidanka ugu awoodda badan waa Soomaaliya maalintaas go'aan ku gaaray inaan danab noqdo in gabdho da'yar ay askar noqdaan wax dhif iyo naadir ayay ahayd muddadii ay burburka ku jirtay Soomaaliya hase yeeshee horumarka amniga laga gaaray oo xaqiijintiisu ay danab qayb muhiim ah ka tahay ayaa loo aaneynayaa in ay ku dhiirisay in ay soo galaan ciidanka wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim waxay sheegtay in haweenka ay door weyn ka ciyaareen nabadda iyo amniga dalka waan ognahay gabdhaha inay door wanaagsan ama door fiican ay ka qaadan karaan sidii loo aanan lahaa mar kale nabad ay qayb ka noqon karaan heshiisiinta sidoo kale xalinta khilaafaadka fariinta kumaandooska dumarka ee ka midka ah danab ay u hayaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha waa in ay u istaagaan ilaalinta iyo difaacidda shacabkooda iyo in aysan jirin cid ka hortaagan inay ku soo biiraan ciidanka danab haddii ay doonaan caalamka waxa nabad ka dhigay horumarka hormuudku ahaa hablo waay marka annagana hablahana Soomaaliyeed waxay fahmeen dalkooda inaan wax uga roonaysan jirin inay ciidankii kamid noqdaan inay arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada marka kaalaya soo gala gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo dhaweynayna gabdho walaalaga ay beer lahaayeen inta jiiftana may beer lahaay dalkeen difaacada yani cadowga ku difaacada adowga hadana la dagaalamahay cadowga kala hanay foolamba sidoo isku difaac lahaan isqabsanan iskaashanan yarlaa gabdhaha kumaandooska danab ku jira waa kuwa lagu daydo waxayna ku rajo weeyihiin inay hadafkooda ka mira dhaliyaan oo ay noqdaan kuwa taariikhda xusi doonto guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii bayaanka danab ee toddobaadkan barnaamijka bayaanka danab waxaan kusoo qaadanaa warar iyo sheekooyin iyo macluumaad la xiriira ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ha mooganaan daawada inaad daawato toddobaadka kan xiga xusuusnow inaad kusoo biirto oo aad rukumato boggeena youtube-ka ee bayaanka danab ku dhufo calaamada gambaleelka si aad ula socoto oo aad u daawato marka barnaamijka kan xiga uu soo galayo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan danab kala soco oo ka mid noqo bogga facebooka ee danab media
waxaa sidoo kale jimco kasta 3:00 galabnimo aad barnaamijka ka dhagaysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Galgaduud, Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne. daawadayaal intaynu mar kale kulmi doono dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.